madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa saxiixay xirmo dhaqaale oo ka kooban 900 bilyan oo dollarka Mareykanka oo loogu talagalay in lagu caawiyo shacabka iyo ganacsiyada uu saameeyay cudurka coronavirus. Sharcigan ayaa waxaa qayb ka ah 1.4 trilyan oo dollarka Mareykanka oo ah miisaaniyadda dowladda ilaa bisha Sebtembar sanadka soo aadan 2021, waxaana saxiixa madaxweynaha uu ka hortagayaa inay istaagaan shaqooyinka dowladda. Madaxweynaha ayaa sharcigan waxa uu saxiixay kadib toddobaad uu diidanaa oo uu cadaadis xoogan kala kulmayay sharci dejiyaasha Mareykanka iyo waliba kuwa xisbigiisa Jamhuuriga. Trump oo xilka ka degaya 20 bisha Janaayo ayaa markii hore dalbanayay in lacag loogu talagalay shacabka oo ah 600 oo dollarka Mareykanka qofkiiba laga dhigo 2,000 si uu u saxiixo sharciga. Xubnaha dimuqraadiga ayaa ogolaaday dalabkiisa una diyaar ahaa inay lacagtaasi kordhiyaan, hase yeeshee waxaa ka hor yimid sharci dejiyaasha Jamhuuriga.